ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumandoska danab ayaa fuliyay howlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaanka Farsooli ee gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay ugu yaraan 15 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab halka lagu dhaawacay 20 kale sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ciidamada ayaa burburiyay xarumo iyo goobo ay kooxda u adeegsan jirtay abaabulka qorsheynta iyo diyaarinta falalka amni darrada ah taas oo lagu tilmaamay inay qayb ka tahay dadaalada lagu wiiqayo awoodda kooxda taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in howlgalka uu qayb ka yahay howlgallada joogtada ah ee lagu beegsanayo Al-Shabaab iyadoo la xoojinayo amniga iyo xasiloonida deegaanada ay ka socdaan howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay sii wado guluf military oo ka dhan ah Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa ciidamada deegaanka saaxiibada caalamiga ah iyo taageerada dhinaca sirdoonka iyo duqeymaha cirka dowladda ayaa sheegtay in Allah lagu doonayo in lagu yareeyo awoodda kooxda laguna soo celiyo gacan ku haynta deegaanada ay wali ka howlgasho mudooyinkii ugu dambeeyay gobolada Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe Hiiraan Galgaduud iyo Mudug ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay noqday meelaha ay ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan howlgallo isdaba joog ah dhinaca kale Al-Shabaab ayaa wali fulisa weerar iyo qaraxyo ka dhaca magaalooyin iyo saldhigyo ciidan inkastoo ay yaraadeen taas oo muujinaysa in dagaalku uu wali socdo inkastoo dowladda ay sheegtay in guulo laga gaaray meelo kala duwan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa adkeeyay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ilaa laga ciribtirayo khatarta ay ku hayaan shacabka iyo amniga dalka dowladda ayaa sidoo kale ku baaqday in shacabka ay sii xoojiyaan wada shaqeynta ay leeyihiin hay'adaha amniga si loo dardargeliyo la dagaalanka kooxda argagixisada Al-Shabaab dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka ka dhanka Al-Shabaab uusan ku koobnayn oo kaliya dagaalka tooska ah balse uu sidoo kale diiradda saarayo jaridda ilaha dhaqaale ee kooxda burburinta xarumaheeda iyo xoojinta maamulka deegaanada laga saaro si looga hortago inay dib ugu soo laabtaan dowladdu waxay sidoo kale sheegtay inay xoojinayso wada shaqeynta ay la leedahay saaxiibada caalamiga ah kuwaas oo bixiya taageero dhinacyada tababarka ah sirdoonka qalabka ciidamada iyo duqeymaha cirka mas'uuliyiinta ayaa aaminsan in isku darka howlgalka military taageerada shacabka iyo dib u soo celinta adeegyada dowladda ee deegaanada laga xoreeyo ay muhiim u yihiin in si waarta loo wiiqo awoodda Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee falanqeeyaasha amniga ayaa xusaya in inkastoo ciidanka dowladda ay guulo ka sheegteen howlgallo kala duwan Al-Shabaab ayaa weli awood u leh inay weerar gaadma ay qaraxyo iyo dil qorsheysan ay ka fuliso qaybo ka mid ah dalka taas oo muujinaysa dagaalka uu weli yahay mid adag oo u baahan dadaal joogto ah